بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودو برنامجka adkaarta waxaan kaga warramnaa axaadiista ku soo aroortay adkaarta la akhriyo gelinka hore iyo gelinka dambe. adkaarta aan ka warramayno Cabdiraxmaan bin Bakrata aabihii waxa uu ku yidhi, anigu waan ku maqlaa adoo ku ducaysanaya aabbow aroor kasta, allaahuma caafinii fii badanii, allaahuma caafinii fii samcii, allaahuma caafinii fii basarii, laa ilaaha illaa anta, oo micnaheedu tahay allahayow i caafi jidhkayga, allahayow i caafi maqalkayga, allahayow i caafi araggayga. ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa adiga mooye. adigoo la 3 jeer markaad waabariisatiyo markaad galabaysato. aabbihii waxa uu ku yidhi, rasuulkii alle baan maqloo ku ducaysanaya ducadan, anna waxaan jecelahay inaan sunno ka yeeshoon dariiqiisa maro. adkaartan qofku waxa uu akhrinayaa gelinka hore iyo gelinka dambe min 3 jeer. adkaarta kalen ku darayno waxa laga wariyey nin nebiga u shaqaynayay. waxa uu yidhi, waxaan maqlay nebigoo leh, radaytu billaahi rabban wa bilislaami diinan wa bimuxammadin rasuula. qofka yidhaahda markuu galabaysto iyo markuu waabariisto, radaytu billaahi rabban wa bilislaami diinan wa bimuxammadin rasuula, oo micnaheedu tahay alle baan raalli ka ahay, rabbinimaan raalli uga ahay, islaamkana diin baan raalli uga ahay, nebigana calayhi salaatu wasalaam rasuul baan raalli uga ahay. nebigu waxa uu yidhi, qofka yidhaahda alle waxaa xaq ku ah oo isku waajibiyey inuu alle raalli geliyo. labada adkaaraan akhrino gelinka hore iyo gelinka dambe. xalqadeennu halkaa haynoo joogto. wasala allaahu wasalama calaa nabiyina Muxamed sala allaahu calayhi wasallam.